qofku marka uu institution ka tirsan yahay ama company ha noqoto ama mid dawladeed ha noqotee waxa weeyaan ayagaa laga rabaa marka koobaad mas-uuliyadda koobaad ayagay saaran tahay inta xogta aan haya haddaan usoo laabta gabadhan ikraamo waalidkeed lama aysan joogin soomaaliyay joogtay hay-adda nabad sugiddaana muddo dheeray ka shaqaynaysay institutionada dawladda gobolka banaadir oo kalena way ka soo shaqaysay hooyo iyo ehel iyo qaraabo waxa u ahay institutionada ay ka shaqaynaysaa u ahay gabar waxay ahayd aada ugu dhow madaxda dawladda kaas ahaan kuwa nabad sugidda marka waxaa qofka haddii dhibaata gaarto haddii uu dhaawac gaaro haddii la waayo cidda koobaaday tahay inay alert ka dhiibaan ama ay raadiyaan waa institution qofka uu ka tirsan yahay kayskan hadda gabadhaanne waxay ahayd gabadhaanu xidhan sare oo kamid ah hay-adda nabad sugidda waxay ahayd qof hay-adaha dawladda aada uga shaqaynaysay aadna looga warqabay dee xiriirka ay la lahayd dawladda marka macluumaadka laleeyahay baabuurka hataa cdga tc camerada la fiirinayo meesha laga qaaday oo aan cid kale iska soo geli karin oo ah eriya u xiran hay-adda nabad sugidda iyo dawladda meesha gaadiidka oo soo maray baabuurkan qooqanta waxaasoo dhan markii la isku daro waxaa soo baxaya waxaa cuslaanaya aada usoo xoogeysanaya shakiga laga qabi karo inay gacanta dawladda gabadhaani ku maqan tahay gabadha marka in waxyaabaha kaloo shakiga weyneynaya waxa weeyaan gabadha waxaa alert waxa qaylinaya oo meel kasta ka hadlaya waa waalidkeed waa hooyadeed waa ehelkeedii dawladdii soomaaliyana way aamusan tahay marka meeshii ay ahayd inay dawladdu noqoto qofka qayla dhaaminaya oo waalidkii hor ordaya oo idaacadihii ka hadlaya oo booliis ka hadlaya c i d da hadlayso oo nabad sugidda lafteeda warqad soo saartay ku tiraahdo qofkaasaa naga maqan oy xogtii maaragtay iyadu hor ordayso hadda waxaa muuqata marka inay ka maqan tahay bicturkii sababtaas marka waxay keenaysaa shakiga ugu weyna la qabi karo in uu yahay inay dawladda hay-adda nabad sugiddu ay gabadhaan gacanteeda ku maqan ama ha noolaato ama ha dhibato xogta kaloo hadda soo baxaysana waxay tahay oon weli aana xaqiijin karin gabadhaan inay ikraam inay gacanta ku haysay faylashii eritrea inay gacanta ku haysay oo dhalinyarada laleeyahy eritrea loo qaaday waa loo qaaday yaas laleeyahay maan waan oganahay in loo qaaday inay gacanta ku haysay combyuterkeeda iyo laptopyadeedana ay ku jireen shaksiyaad yar ay ku jireen oo kamid ahay ayada keliya ma dhihi karo taas weli ma cadday karno hadday marka taas run tahay dadkii og baa og oo i dhegaysanaya maanta oo gabadhaas inay lug ku lahayd recruitmentiga dabcan agency la isticmaala ama qof shaqaalaha ahayd ayadu go-aamada ma lahayn hadday dadkii faylashaas haya kamid ahayd dan waxaa soo baxaysa sabab aada u weyn oo ah in dawladdu ay doonayso inay saadkaas baabi'iso qof kastoo ku lug lahayna uu ka baxo hawada